Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta qiimaha badan oo meel kastoo aad joogtaan waxaad kusoo dhawaataan taariikhda iyo xidigaha ciyaartooyda. Waxaa hadda horey u gudagali doonaa taariikhda ciyaaryahanka lagu magacaabo Cumar Marmuush taariikhdiisa oo dhammaystiran. Fadlan waxaa kaa codsanayaa janalka inaad subscribe ii saartid, muuqaalkana aad like inoo saartid. Aad iyo aad ayaa mahadsan tahay. magaciisa oo dhammaystiran waa Cumar Khalid Maxamed Cabdisalaam Cumar Marmuush. waxa uu ku dhashay Qaahira ee dalka Masar 7 Febraayo 1999. wuxuu xirfadiisii ciyaareed ka bilaabay kooxda Wadi Degla ee horyaalka dalka Masar, isagoo kulankiisii ugu horeeyay ee xirfadlaha u saftay 8 Julaayo 2016 markaas uu jiray 17 sano. intii uu joogay Wadi Degla waxa uu u saftay 18 kulan, waxa uuna dhaliyay 2 gool. sanadkii 2017 Marmuush waxa uu u wareegay naadiga Wolfsburg ee dalka Jarmalka, halkaas uu inta badan u ciyaaray kooxda labaad ee Wolfsburg, isagoo u saftay 36 kulan oo u dhaliyay 11 gool ayuu u dhaliyay. wuxuu kulankiisii ugu horeeyay ee official ah oo Bundesliga u saftay bishii Maajo 2020 si uu u helo waayo aragnimo dheeri ah. Wolfsburg waxay amaah ugu dirtay naadiga St. Paulo iyo naadiga Stuttgart. xil ciyaareedkii 2020-2021 waxa uu u saftay St. Paulo 21 kulan oo ka mid ah 2 Bundesliga, isagoo u dhaliyay 7 gool, halka xilli ciyaareedkii 2021-2022 u saftay naadiga Stuttgart 21 kulan oo Bundesliga ah, isagoo u dhaliyay 3 gool. kadib markii uu Wolfsburg ku soo laabtay, waxa uu saftay 33 kulan oo horyaalka ah xilli ciyaareedkii 2022-2023, isagoo u dhaliyay 5 gool. bishii Julaayo 2023 Marmuush waxa uu si toos ah ugu biiray naadiga waqti xaadirkan ee kala soo wareegtay naadiga Manchester City ee Eintracht Frankfurt, halkaas oo si weyn uga soo ifbaxay. xilli ciyaareedkii 2024-2025 waxa uu u dhaliyay 13 gool, halka uu saftay 12 kulan oo Bundesliga ah, taas oo ka dhigtay ciyaaryahanka ugu goolasha badan ee taariikhda Frankfurt bilowga xilli ciyaareedka horyaalka. qaab ciyaareedkiisii cajiibka lahaa ayaa soo jiitay indhaha Manchester City, kuwaas oo ay la soo saxiixday Marmuush bishii Janaayo 2025. heshiis gaarayo 4 sano iyo bar ayuu u saxiixay. qiimaha heshiiskaasi ayaa lagu waramayaa inuu ahaa qiyaas gaaraysa 70 milyan oo euro oo lagu daray lacag gunnooyin ah. isku dardar lacagtaasi waxay noqonaysaa 75 milyan oo euro. xulka qaranka Masar Marmuush waxa uu u saftay 35 kulan, isagoo u dhaliyay 6 gool ilaa iyo November 2024. wuxuu sidoo kale ka qayb qaatay koobka qaramada qaaradda Afrika ee 2021, halkaas oo Masar ay gaartay finaalka. Marmuush waa ciyaaryahan weerar ka ciyaara ee loo yaqaano xawaare, farsamo iyo awood u leh inuu jebiyo daafacyada ka hor imaada. sidoo kale waxa uu ku fiican yahay laadadka xorta ah, isagoo oo dhaliyay 3 gool oo laad xor ah. xilli ciyaareedkii 2024-2025 waxaa loo arkaa inuu yahay mid ka mid ah ciyaartoyda ugu hibada badan ee jiilkiisa, waxaana la filayaa inuu door muhiim ah ka ciyaaro guulaha Manchester City ee mustaqbalka dhow. Fadlan taariikhda Cumar Marmuush taariikhdiisa oo dhammaystiran halkaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa. aad iyo aad ayaad mahadsantihiin asxaabta qiimaha badan. fadlan marka haddii aad halkan ila soo gaartay, waxaa kaa codsanaya haddii subscribe ku ahayn inaad subscribe sartid, muuqaalkana like-tiisa oo xaqiisa ee siisid oo like ah. marka aad iyo aad ayaad mahadsan tahay. commentiga noogu dhiirigeli ee waxaad soo qori kartid oo habboon soo qor. aad iyo aad mahadsan tahay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.